السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa maxamed xirsi maxamed, kusoo dhawaada Higgs Technology. maanta waxaan qaadan doonaa hadduu alla idmo sida loo suubiyo corner-ka wareegooda. shape-ka kasta nooc ayuu noqdaa, haddaba sidee looga dhigaa corner-rada shape-ka kuwa sidaas wareeg u ah. markale kusoo dhawaada Higgs Technology. maanta waxaa qaadan doonaa hadduu alla idmo sida hore kuu sheegay sida loo sameeyo wareegga corner-radaas. corner walba wuxuu noqonayaa wareeg noocaas ayuu leeyahay. haddii aad doontid in wareeg noocaas u sameysid corner-kaaga, sidee u sameynaysaa adagoo isticmaalaysa rectangle tool. haddaba aan soo qaadno midkan, waxaa ka bilaabeynaa afarta gees ay wareegga ka yihiin. haddaad rabtid inaad wareeg noocaas ka sameysid, waxaa aadi kartaa toolkan ayaa aadi kartaa, kadibna waxaad dooran kartaa rectangle tool, kadib sidaas ayaa usoo dhigi kartaa meeshan. rectangle toolkan sidaa ujeedid waa 90 degree waa 90 degree waa 90 degree. haddaan rabo inaan 90 degreedan wareeg ka dhigo, sidaa ka dhigayaa sida kan oo kale. keli kusii faylka, kadibna effect dheh, kadibna waxaa dhahdaa style, kadibna waxaa dhahdaa round. kadib inta waxaa ka dhigtaa inta aad rabtid, kadibna view dheh, arag wareeg ayuu leeyahay, kadibna okay. sidaas ayaa loo sameeyaa marka la joogo CS6. markaan rabo inaan kan sameeyo oo hal dhinaca ka dhiga wareeg, inta kalena ay ii ahaadaan caadiga, waxaan leeyahay rectangle-kaa soo qaadanayaa, intaas soo dhigayaa, geeskana rabaa inaan ka dhiga wareeg. waxaa tegayaa meesha shape ku jiro, keligaa siinayaa, waa cabaar ahaynaya, kadib way soo baxayaan kuwan. ellipse tool-kana soo qaadanaa, ellipse tool-kan soo qaada, geeskana ku dhufanaa, kadib saasa u jiidayaa. sidaas markaa u jiibtid, haddaad shift qabo sida kugu toosto, angle-kaas sidaas ayuu noqonayaa. kadib selection tool soo qaado, highlight wada saar labadooda. kadib waxaa tagtaa halkan ay ku qoran tahay shape builder. shape builder-ka markaa tagtid, inta imaatid kili ku sii kan dhexe, kadib dhinacaas u jiid. kadib waxaa dhahdaa select tool soo qaado, kan hoose tag qaybta aadan rabin, kadibna del dheh. haddaan rabo laba dhinac inaan ka dhigo, sidee u sameynaya? markaad tago halkan oo aad soo qaato rectangle tool, oo inta aad soo dhigo, waxaad tegayaa rectangle tool meesha kasoo qaata ku noqonayaa, ellipse tool aa soo qaadanaya. kadib geeskan ayaa keli ku siinayaa, saasa u jiidayaa. geeskaasna sidoo kale keliyaa ku siinayaa, sidaasa usoo jiidaya si isla eg. kadib waxaad dooranayaa select tool, highlight aa wada saaraya. highlight markaa wada saaro, waxaad tegayaa shape builder, kadibna intaa keli ku siinayaa, kadib dhinacaasa u jiiday ilaa kaas kale. labada dhinac aan rabo inay iga baxaan, dhinacan iyo dhinacan ma aadayo. kadib waxaad aadayaa selection tool, kadib dhinacan ayaa keli siinaya, waa deleedaya del keyboardka, intana del keyboardka. sidaas ayuu ku sameysmeen. soo dhawaada, wixii su-aala aa qabtaan comment igu reeba, insha Allah waa idinkaga soo jawaabaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.